waxaa lagu soo waramayaa in aad loo adkeeyay amniga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug oo maalinka Sabtiga ah uu ku wajahan yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa la sheegay inay la wareegeen guud ahaan amniga magaalada caasimadda ah ee maamulka Galmudug, waxaana la sheegayaa in ciidamadii Galmudug guud ahaantoodba laga saaray magaalada Dhuusamareeb. Ciidanka nabad sugidda iyo sidoo kale ciidanka koofiya casta ah ayaana la sheegay in lagu arkayo gudaha magaalada, gaar ahaan xarumaha checkpointiyada ah ee laga sugo amniga Dhuusamareeb. Madaxweyne Qoorqoor ayaa isna lagu soo waramayaa inuu ka guuray xarunta madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb, isla markaana uu degay xarunta guriga gobolka Galgaduud oo ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda ayaa loo diyaariyay inay degaan xarunta madaxtooyada maamulka Galmudug muddada ay ku sugan yihiin Dhuusamareeb. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa oo sidoo kale ay ka mid yihiin saraakiisha ugu sareysa ciidamada Soomaaliya ayaa la filayaa in muddo toddobaadyo ah ay ku sugnaadaan Dhuusamareeb, halkaasi oo ay ka hagi doonaan dagaalka wejiga labaad ee dalka looga saarayo Al-shabaab, sida kol hore laga soo xigtay ila ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wafdi hordhac u ah oo uu ka mid yahay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo ay maalmihii dambe ka wadeen kulamo ay la yeelanayaan madaxda maamulka Galmudug, saraakiisha ciidamada ee ku sugan Dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la filayaa in maalinka Sabtiga ah uu gaaro magaaladaasi, sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo ka agdhow madaxtooyada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa maanta isbeddel lagu sameeyey taliska qaybta 21aad ee ka howlgala deegaanada Galmudug, waxaana xilkii laga qaaday taliyihii qaybtaasi Genaraal Xasan Maxamed Abuukar Xasan Jaamici, iyadoo lagu bedelay nin sargaal ah oo lagu magacaabo Cabdi Salaad Cali Shuuriye, kaasoo haatan wixii ka dambeeya noqon doona sida uu shaaciyey taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha qaybta 21aad ee militariga Soomaaliya kana howlgala gobolada Mudug iyo Galgaduud. Waxaa sidoo kale xilka laga qaaday taliyihii qaybta 27aad ee militariga Soomaaliya oo iyaguna ka howlgala gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ama maamulka Hirshabeelle. Dhinaca kalena waxaa dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ka dhan ah Al-shabaab oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka socdaan qaybo ka mid ah gobolada Galgaduud iyo Mudug. Deegaano hoos taga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ayaa la sheegay in ciidamada militariga Soomaaliya ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah Al-shabaab. Sidoo kalena koonfurta gobolka Mudug, gaar ahaan deegaanada Wisil aageeda, waxaa la sheegay in halkaasi ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamada militariga Soomaaliya, kuwa daraawiishta Galmudug iyo kuwa deegaanka, waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi looga soo horjeedaa Al-shabaab, iyadoo la filayo in dhowaan madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqo wejiga labaad howlgalka ka dhanka ah ururkaasi oo dowladdu ay ugu magac dartay howlgalka Libaaxa Madow, lana qorsheynayo in guud ahaan inta ay kaga sugan yihiin gobolada dalka looga saaro ururka Al-shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii xilka loo doortay 15 May sanadkii 2022 waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-shabaab, waxaana dagaalkaasi oo ka bilowday gobolada Hiiraan, Galgaduud, Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose Al-shabaab looga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug oo degmada Xaradheere Al-shabaab laga saaray. Taliyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay militariga Soomaaliya ayaa isna waxaa la sheegay inuu wado abaabul xooggan oo la doonayo in Al-shabaab lagaga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin bariga gobolka Galgaduud oo ay ka mid yihiin degmooyinka Ceelbuur iyo Galhareeri. Wixii ka soo kordha wararka Galmudug iyo safarka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo Dhuusamareeb waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe.